marka waxaan doonayaa inaan ku xejiyo gabay la yiraahdo dhanbaalkii jaceyl dhanbaalkii jaceyl ruux cishqiga loogu dhuray weelka oo dhiil u hoorsaday misana dhabay horaadkiisa oon dhiijin baanahay ibtii godoshu dhoobneedee saqdi dhexe anoo dheelaalow dhab uga soo toosay dhanka bidixa taan ka arkay baan dhimirku sii dayni sidii ubax dhallaan iyo dhirtoo biyo ku dheeraatay oo xareed isdhaafdhaafa iyo harac dhaxduu taalloo yarta dhilan dhammaystani qalbiga way igu dheer tahaye waa dhaayahaygiyo wadnaha oo dhammaystirane waa dhiigga igu beeran iyo dhuux la ii shubaye dhanka xiga halbowlaha ayaan dhab ugu haayaay dhaqdhaqaaqa jiirtaa ku xidhan dhawaaqyadeediiyo indhahaa ku dhaashada sidii dheeman iyo luule xiska waxay ku dhigan tahay halkan laga dhammaan jeere dhaayahaa dul joogoo qalbiga wow dhallaan ugube waa dheeman iyo luul misana dahab wax sii dheere waa dhaxal gal qayb lagu dhex qoray loo dhammaystiray waa ubax dhallaan oo qalbiga looga dhigay kayde waa midaan indhuhu dhaafin oon dhimirku sii dayne waa laygu dhigay oo ifkaan dhab uga eegtaaye waa laygu dhigay oo ifkaan dhab uga eegtaaye waa dhaxal jaceyl ugu amriyo dhiig la ii shubay waa dhaxal jaceyl ugu amriyo dhiig la ii shubay dhadhan gaarahay leedihiyo dheg iyo taariikhe dhabtaydan ku hayaa sidii beebiya aan dhalaye dhaqdhaqaaqa dheegayga waa loo dhammaystiraye dhankan ka arkay anigoon isdhugan dhibicda muuqeeda sida ubad ka dhumay hooyadoo helay dhawaaqeeda dhakakoobsi waan ugu ordaa dhawaaqyadeedii dhakakoobsi waan ugu ordaa dhawaaqyadeedii halkaasaan ku soo koobayaa galabta maadaama waqtiga uu nasiib kulaalayo waxaan leeyahay marka saaxiibkay walaalkay qaaliya abwaan cabdullaahi ibraahim macallin abwaan qaanso iyo walaashii qaaliya oo jecelahay ilwad aragsan kulanta dambe oo xiiso leh soo naqad wanaagsan insha Allah abwaan qaanso sanadka dambe markuu soo noqdo inaan farxad isugu soo laabanaan sugayaa